iyadoo weli ay socoto howlaha nabadeyn ee degmadaasi Ceelaf Weyn laga wado ayaga haweenweynaha ku dhaqan degmadaasi Ceelaf Weyn waxay maanta si mug iyo miisaan leh u soo dhaweeyeen howlaha nabadeyn ay wadaan odayaasha salaadiinta iyo boqorada ka soo jeeda beelaha ay colaadu ku dhexmartay degmada Ceelaf Weyn iyo deegaanada hoos yimaada haweenkani ayaa sheegay inay la barbar taagan yihiin odayaasha iyo waxgaradkaasi nabadeynta ka wada degmadaasi Ceelaf Weyn isla markaasina sheegay inay kula shaqeyn doonaan waa kuwan haweenweynaha oo taageero mug iyo miisaan leh u muujiyay nabadeynta iyo xabad joojinta laga wado degmadaasi Ceelaf Weyn maxay is afkartay maxay arintaas soo abaabulay annaguna hadaan haweenkanahay waanu ku taageeraynaa waanu garab taaganahay wax allaale wixii ka dhiman ee ay nooga baahdaan ayaan annaguna daba shaaraynaa gacanta qabanaynaa wax allaale nabadgelyada haday tahay hadaanu beeshaan nahayba waanu taageeraynaa waxaanu leenahay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha dadku niyadii bay ka dhinteen maxay tahay ganacsigii uu dhintay maxay tahay biyo la'aan caafimaadkii waa tagay iskuul lagama barto hoos la noo eego dadkii moraalkoodii wuu jabay halana soo noolay moraalka iyaga la soo noolay degmada iyo degmooyinkii ku xigayba way dhinteen waxaan soo dhaweynaynaa nabadda lagu baaqay waa hambalyeynaa waa soo dhaweynaynaa insha Allah ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay inuu noo qaado ilaahay inuu tii aanu ku nagaan ee rumowday ee aanu ku raysanay ku seexanay ku soo toosno ilaahay inuu nooga dhigo insha Allah ilaahay baanu ka rajaynaynaa hadaan nahay haweenka degmada Ceelaf Weyn labada darafba waxaanu leenahay ilaahay haduu idin garansiiyay waanu idinku taageersanahay waanu idinku barbar joognaa mahad waxa la ilaahay talabaad ragga yaga haday sadaadin tahay haday cuqaal tahay haday boqor tahay haday suldaama tahay haday madax dhaqameed tahay haday waayeel tahay haday dhalinyaro tahay ragga yaga ilaahay is afgaransiiyay iyagu gartay maanta ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inoo hergeliyo nabadgelyada ragga u gartay idinkuna hadaa iimaankii Alle idinku soo celiyay ilaa nin dagaalamayo dhiigiisa cabaya ma qabo miyire hadii ilaahay iimaankii idinku soo celiyay waxaanu leenahay alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay waa mahad nabadgelyada lagaga baaqay ee didbada loo aasay degmada Ceelaf Weyn ay ku gacanayaan baho iyo dareys waanu soo dhaweynaa si mug iyo miisaan leh ayaanu u soo dhaweynaa anagoo labada beelood waxaanu soo dhaweynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay haday boqor tahay iyo haday suldaan tahay iyo haday chief caaqil tahay haweenkii degmada Ceelaf Weyn ee labada reer waanu soo dhaweynaa waanu garab taagan ragayga labada beelood waa garab taagan waxaanu leenahay ilaahay nin walba xaq ah waa beelood ee nabadda ku baaqay ee gartay nasiibkoodii maanta kulansiiyay inay nabadda gartaan halkan waxaan uga soo jeedinayaa salaan kal iyo laaba tusay inay gartaan arrintii u tiilay ee labada beelood baho iyo dareys waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin waxaana hadaladoodii kamid ah Axmed Maxamed Cilmi on Cable TV Ceelaf Weyn